muxuu inoo yahay urur goboleedka IGAD maxay yihiin ujeedooyinka loo aasasay mase ogtahay daawade in urur goboleedka IGAD ay igleeladeedii qayb weyn ku lahayd dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya warbixintan waxaynu daaha kaga qaadi doonaa arrimaha loo aasasay ururkan iyo markii dambe sida uu isu bedelay shirkii ka dhacay Muqdisho xilli madaxeedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida ay uga muuqateen madaxdii dawladaha Islaamka ah ee qaybta ka ah ururkan halkay soo ajiibeen kuwa Masiixiyiinta ahi falcelintii markaasi ay dawladda Soomaaliland ka samaysay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi iyo arrimo kale sanadkii 1986 xilligaas waxa aad u sareeyay xiisadii u dhaxaysay dawladaha Mareykanka iyo Ruushka waxaana sii xogeystay dagaalkii qabowga ee u dhaxeeyay labadaasi dal Ruushku waxa uu deganaa dalka Itoobiya halka dawladda Mareykankuna ay saldhig military ka samaysatay magaalada Berbera ee caasimadda hadda waa gobolka Saaxil ee Somaliland waxa markaasi uu Mareykanku dawladdii jamhuuriyadda Soomaaliya u soo dhiibay fikradda urur goboleedkan IGAD dawladda Mareykanka ayaa u soo dhiibtay dawladdii jamhuuriyadda Soomaaliya fikradda urur goboleedkan IGAD waxa uu magaciisu ahaa IGAD Intergovernmental Agency for Drought and Diplomacy sida ku cad magaca abaaraha iyo horumarka ay IGAD shaqo ku lahayd siyaasadda iyo nabadgelyada hawl kuma ay lahayn lixda dawladood ee ku bahoobay urur goboleedkan IGAD waxa ay kala ahaayeen dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya Itoobiya Sudan Uganda Kenya iyo Djibouti dalalkan waxa ka dhaxaysay culaad weyn jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Itoobiya gooni ay isu haysteen Sudan iyo Kenya Sudan iyo Uganda iyagana waxa ka dhaxaysay culaad Sudan iyo Itoobiya xira ayay ahaayeen Kenya iyo Ugandana waabay ka sii darnaayeen dawlad waliba ta ay la colka tahay ay jabhad la dagaalanta martigelisay oo ay haysatay sidaas darteed ayaa hawlaha ururkan loogu koobay abaaraha iyo horumarinta oo kaliya xarunta urur goboleedka IGAD waxa laga dhigay Djibouti caasimadda jamhuuriyadda Djibouti dawladda Djibouti kama mid ahayn barqabyada lacagtamaya ee culaadu ka dhaxaysay waxayse ku jirtay habeen walba caways ay ku qaadan jireen xeebta ku dhararan sanadkii 1993 ay dawladda Eritrea ka mid noqotay urur goboleedka IGAD markii ay ka goosatay Itoobiya sanadkii 1995 markii UNSOM iyo ciidamada Mareykanku ay ku guuldareysteen siyaasadii ay kala hayeen dalkii la oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya ayay maalin cad ka huleeleen waxayna dawladda Mareykanku markaasi la timid xeelad kale isla sanadkaasi shir madaxeed ay yeesheen urur goboleedka IGAD ayaa lagu bedelay magacii iyo axdigii ururkaasi uu lahaa waxaana loo bixiyay IGAD Intergovernmental Agency for Diplomacy waqtigaasi dawlad Soomaaliyeed ma ay jirin mana ay saxiixeen heshiiska ururkan cusub iyo axdigaasi cusub waxaa looga dan lahaa in ururkan cusub oo ay hormuud ka ahaayeen Itoobiya iyo Eritrea in wax lagaga qabto Soomaaliya iyo koonfurta Sudan ayaan daro waa tii dagaalku ka dhex qarxay labadii dawladood ee Itoobiya iyo Eritrea sanadkii 1998 sidaas ayaana barnaamijkii dib ugu dhacay 2006 dawladda Soomaaliya wali qayb kama noqon ururkaasi cusub ee IGAD mana ay saxiixin axdi qarameedkaasi la bedelay sanadkii 1995 dadka qaar ayaana ku tilmaama kulamada ay qayb galaan iyo warmartiyeedka magacooda uu ku soo baxo inuu yahay hal bacaad lagu lisay aynu ku noqonay shirka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynekii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh waxa isugu yimid madaxda urur goboleedka IGAD waxa ka muuqatay laba madaxweyne oo kamid ah madaxda urur goboleedka IGAD oo muslimiin ah halka ay ka soo qayb galeen saddex masiixiyiin shirkaasi Muqdisho ayuu ka dhacay waxaana marti qaaday madaxweyne Xasan Sheekh madaxda ururkaasi madaxweynaha ka muuqatay waxa kamid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu markuu hawada Muqdisho marayay sheegay in diyaaradiisa ay cilad ku timid sidaas darteed madaxweynuhu uu ku noqday magaalada Djibouti sidaana uu uga baaqsaday kulankaasi waxna la sheegaa inuu ka soo degi karay markaasi Muqdisho iyo Nairobi labadaba halka madaxweynaha Eritrea isagu oo diblomaasiyadda Afrika iyo dunidaba ka xidhnaa xilligaasi madaxweynaha Sudan oo markaasi ahaa Umar al-Bashir isaga waxa la dhacay ku raadinaysay maxkamadda cadaaladda adduunka oo sababtaasi ayuu isna uga baaqday halka ay yimaadeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Uganda shirkaasi wixii ka soo baxay Somaliland waa ka dhawaaqday waxaana xilligaasi ahaa madaxweyne Axmed Silaanyo warmatiyeed ayana ka soo saareen iyagoo ganafka ku dhuftay qodobada shirkaasi ka soo baxay IGAD maxay noo tahay